barasabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Falay oo ay weheliyaan saraakiisha kala duwan ee ciidamada qaranka gobolkaasi Sanaag oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha degmada Ceelafweyn ee galbeedka gobolkaasi Sanaag ayaa ka xoogaal bixiyay halka ay marayso waanwaantii nabadeed ee maalmihii ugu dambeeyay uga socday degmada Ceelafweyn ee galbeedka gobolkaasi Sanaag beelihii ku dagaalamay qaar ka mid ah deegaanada ku yaala degmooyinka Garadag iyo Ceelafweyn sidoo kalena waxay shaaca ka qaadeen waqtiga kaba dambaysta ee lagu bixinayo jifiyihii magaha ee xukuumadda Soomaaliland hore uga xukuntay marxuunadii kala dhintay dagaaladii dhexmaray labadaas beelood muddooyinkii ugu dambeeyay taas oo waqtigii hore xukuumaddu u mudeysay in lagu bixiyo magahaas dib u dhac ku yimi abaarihii baahsanaa ee dalka ka dhacay awgood haddaba waa kan gudoomiyaha oo tafaasiil dheeraad ka bixinaya amurahaas maanta farxad weyn noo tahay inaanu qaybtii labaad ee shaqaaqadii ka dhacday gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceelafweyn iyo degmada Garadag aanu galay waanu go'aamo cusub ka gaadhay hadii ay ka dhigo nabadda in la adkeeyo oo laga shaqeeyo oo aad iyo aad heegan loogu wada noqdo ayaa taa ku baraarujinayaa waa go'aamo uunaanin haween marka hore sidaanu shirarkayga jiray hore u sheegnay waxa waa dabagalkii iyo fulintii go'aamadii hore ee xukuumaddu ay ka gaadhay halkan qodobka koowaad waxa weeye muddo bil baan u qabanay in lagu bixiyo dhammaan jifiyaha 30 maalmood gudahood ka bilaabmaysa shalay oo go'aanka gaadhay oo bisha 7 ay ka waayid oo aanu bishaas ay ku eg tahay kowda bisha 8aad 2017 go'aamadaas waxaanu ku gaadhnay inay ku bixiyaan labadii ardaa ee walaalo ahaa ee ay shaqaaqadu dhex martay waa jifiyaha qolada la yiraahdo darays waxa laga doonayaa 8 jifiyood oo ah 320 halaad weey ayay kowda bisha 8aad ka soo dhoobayaan hadii ay ka dhigo sidoo kale baaho oo iyaguna waxay soo keeni doonaan waa 4 jifiyood oo ah 160 halaad inta macnaheedu waxa weeye waa jifiyihii hadii ilaahay ka dhigo tadabana waqtigeeda waxa noo harsan magweyntii waanu dub ka qiimeyn doono xilligeeda waxa noo harsan dhaawacyadii maaha magta oo dabashada qura dhaawacyadii baanu iyadana dub ka qiimeyn doonaa oo la xaq doono xilli aan iyadana u qoontayn doono hadii ilaahay ka dhigo aasaskii waxaana waan gaari doonaa hadii la ka dhigo taas waa taa qodobka labaad degmada Garadag oo ah fadhigaab iyo ceel la helay saddexdii marxuun ee ku dhintay iyadana waa barbar socota sida ugu dhaqso badan ee sincarro ka dhacday deegaamadaasna waa aqbaleen dhinaca kale waxa iyaguna goobtaasi ka hadlay qaar ka mid ah saraakiisha kala duwan ee ciidamada qaranka gobolkaasi Sanaag iyagoo ku amaanay labada dhinac ee colaadan ka dhaxaloosneed muddada dheer sida ay uga shaqeeyeen nabadda iyo sida ay soo dhaweeyeen isla markaana u qaateen go'aanada xukuumaddu gaadhay runtii si fiican baan guud ahaan markaan soo ururiyay hadalkaas si fiican baa arrimaha nabadgelyada aan soo afgaranay labada dhinac labada degmada laba dhacdo oo kala dambeysay bay ahaayeen waxa horeysay degmada Ceelafweyn tan Ceelafweyn labadii garab oo labadii ardaa oo arrintu ka dhacday annagoo fulinayna awaamirta hore dawladdu u bixisay iyo amarradii hore u bixisay ayaa noo yeeray tiiba lagu dhaqmayo baanu niri taasaan socodsiinayna labada dhinacba iyo dadweynaha kale la degmadanba waxay soo dhaweeyeen in arrinta la dhex galo oo arrimuhu wixii ka qabiyaha la dhameystiro si isku duubnaana aad baan uga maqanaynaa labadii beelood oo ku kala gaareen iyo dadweynaha kale weheliyaba sidii arrinta noogu garab galeen ee ay isu soo taageen ay noogu goobaabiyeen annagoo runtii ah guddigii nabadgelyada oo arrinta fulinteeda awalba sharciyan annagoo aanu lahayn xukuumadduna arrin ay naga sugaysay ahayd iminkana lagula socoto dhaqdhaqaaqa aanu ka wadno degmooyinkan waa hortayna lagu barbar taagan yahay waxaan leenahay sidaa noo soo dhaweyseen ee arrintaa noogu garabsan cid alla cidin ugu garabsan waxaan leenahay sidii aan noola wadeen noola wada waxaanu haysanno oo aanan hamranaynin oo aanu gacanada ku qaban doonaa cid walba magac kasta ha lahaato taytal kasta ha sidato mar hadduu nabadda jeedka leeyahay mandate baanu haysanaa waa la xisaabtamaynaa waa qabanaynaa Axmed Mursal Askari TV caalamiga Universal Ceelafweyn.